شابين هيا muuqaallo cusub oo la soo gaarsiiyay xarunta TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho ayaa lagu arkayay ciidamada daacad u ah maamulka Westland kuwaasi oo dowladda military ku sameynaya deegaano ka mid ah gobolada Bakool iyo Hiiraan gaar ahaan deegaanka Ceelcadde ee ku yaala gobolka Hiiraan. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Westland Cabdi Sheekh Faarax oo la hadlayay ciidamadaasi ayaa sheegay in ciidamadooda ay gacanta ku dhigeen deegaano ay ka mid yihiin Qurac Joome, Ceelmagad, Farlibaax, Ceelcadde, Abeesaale iyo deegaano kale oo ku yaala gobolada Bakool iyo Hiiraan. waxaana sheegay in ujeedadu uu yahay sidii ay al-shabaab uga saari lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin goboladaasi. dadka islaamka ilaahay wuxuu leeyahay namarku ikhwa faaslihu bayna akhawaykum wattaqu la'allakum turhamun ilaahay saas dadka islaamka lagu duulo waxa loo dhimo maya laakiin cidii adiga dibkaada wadato oo xaqaaga inay duusiyo rabto ina naftaada u furto iska celin laga maarmaayo walaalayaal marka waxaan rabnaa naftooda iyo maalka kan ugu daran waa maalka ilaah baa idin ku dhaariyay haddaanan maal la bixin haddaanan wax la dhiibin haddaan nool iyo mood la isku dirin ilaah baa idin ku dhaariyay meel baa la gaari karaya. waxaa maanta sharaf inoo ah annagoo joogno degmada Ceelcadde ciidankan halka fadhiyo waa guutada koobaad maamulka Westland State ciidankaas oo ka soo kicitimay degmada Qurac Joomo soo qabtay Ceelmagad, Abeesaale, Baadikeen haddana saldhigooda cadow ay ka xureeyeen oo hadda ay taagan yihiin ay tahay degmada Ceelcadde. shabab hajabo Westland State ha guulaysato Westland State ha guulaysato. shacabka ku dhaqan deegaanadaas ayaa la arkay iyagoo si nabad ah ugu nool deegaanadooda isla markaana xoolahooda ugu waraabinayay ceelasha ku yaala deegaanadaasi. waxaana intii ay ciidamadan howlgalka wadeen ka dhacay deegaanadaasi dagaal u dhaxeeya ciidamadii al-shabaab ee gacanta ku hayay tuulooyinkaasi iyo waliba ciidamada maamulka Westland State oo iyana gacan ka helaya ciidamada Itoobiya. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.